أنا شبه لا دوسة كمان كدب همر اللي يصاب الدليل جبهة همر اللي يصاب الدليل مركا شقدي أو أنا شقدي بجرا على ساقط أنا أدو كلي صابت مالي ساقط عمر آدن محمد oo magaciisa afgarashadu yahay Zakariya waxa uu ku dhashay tuulada Ceelboon oo ka tirsan degmada Waajid ee gobolka Bakool yaraantiisii ayaa ugu dambeysay dugsi Quraanka mana xasuusto xitaa suurada iyo aayada uu kaga tagay juska labaad waba hadii ay laba-labeentiisu sax tahay ilaa jus iyo yakasa دور جزء كذا لب جزء كذا لب جزء كذا عمر آدن محمد oo magaciisa afgarashadu yahay Zakariya iyo Cabdulla Ahmed Muude oo magaciisa aqoonsiga argagixisadu yahay Cabdiwaaxid ayaa 13 November sanadkii tagay si wada jir ah u dilay Allah oo naxariistay Cali Cabdulla Maxamed oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka laakiin dadaalka wiilasha aan muuqan ee suga amniga shacabka ayaa midna naafiyay kan karana isaga oo bad qaba ku soo wada siman labadaba gacmaha sharciga isagoo meel taagan oo jaad inay wax gadanay ma aqaan meel taagan mashquulsan afkiisna dhankaas iga jeeda iyo gadaal ugu maaday yaa saasa bad ku dhuftay abad gadaal ugu keenay qoorta ku dhuftay maska meelaha ka bahday waa soo jeestay yar kale laba tilmaad waa iga kadib yar kale laba ku dhuftay ايش اكو بكتي اسا marka kadib unu waa baxanay aska baanay atar habada nagu bilaaw abad yarka saaxiibka habada ku dhaaday markii anana sidaa ugu qabtay mas'uul waa dheewaysay waa kadibtay laba saddex jar ay kadibtay talaga tarbadnaa kaayna oo lagu ku badan yahay laba qof oo intaas iidan noo leek dhaasooday anay ma ogtay sidaa nagu qabtay Muude waa reer baadiyaan aqoon dhaqanka magaalka laakiin loo soo xulay sida uu ugu dhaqri lahaa dadka muuqiisa qalafsan aniga waxaan nahay nin reer baadiya waxaan ku dhashay walweyn beledowgal gadaasheed meel ah dhinacaas aan ku dhashay magaalada Muqdisho ma maajin uliin mamaanin waxaan u amaaday waxa uu ka sheekeynayaa sida ciidamada amniga ay u xaliyeen isku daygiisii baxsadka ahaa ee orodka mooyay aysan la jirin xirfadihii lagu yaqaan argagixisada gaar ahaan kuwooda gaadmada wax ku dila ay xambada isku dhaceen dhinaca waa cararkii carray ay xambada dhowr xambada u dhacday laakiin waxaan ka tirsanayaa al-shabaab aniga magaalada ma aqoonina meel oo maxaa la beerar badan ku toos meesha orod ku gooy aniga cararaya dhowr xambada u dhacday midii uu dareed dhabarka ay dhacdo caloosha ay dhaaf fadhiisatay tii amir ugu dambeysay ilaa ay isbitaal ligay Umar waxa uu tababar ku soo qaatay ceel cadde oo ka tirsan Jubbaland 2014 Janaale Dano Mashalay Shalaambood Buufo number 60 number Konton Bariire Afgooye iyo Qoryoole ayuu ka qayb galay weerar gaadma ah oo argagixisadu geysatay hadalkiisa oo yar iyo sida uu ugu dhaga nugul yahay hadalka horjoogayaashiisa dulqaadarida dhageysiga dadka kale iyo ka jawaabid la'aanta weydiimaha ay u arkeen maleeshiyada argagixisada inay tahay fursad xamar kaga banaan iga arkeen jooga dheer laakiin aan kor iyo koonfur kala aqoon Cabdulla Ahmed Muude ayaa al-shabaab ugu tagay ceel macallin cali oo degmada Walweyn hoos tagtay 2018 laakiin isaga ayaa doortay in shaqo looga dhigo magaalka maadaama uu baadiyaha cimrigiisa la qaybsaday jabhadnimadana uu ka doortay inuu ku magaalo joog barto dilka dadka Soomaaliyeed labada xukun sano ayaa loo haystaa dilka Allah oo naxariistay Cabdullaahi Maxamed Hilowle oo ka tirsanaa ilaalada deegaanka iyo Cali Cabdulla Maxamed oo isna ahaa ciidamada difaaca dalka oo ay kala dileen October iyo November sanadkii tagay habraacyada baarista wargeynta maxkamadeed iyo dhageysiga kama dambaysta ayaa soo ilaatay bishan 10keedii sababta intaas uu qaatay ayaana ahayd in qaybaha caafimaadka ciidamada ay la tacaalayeen caawimaada mid kamid ah labada xukun sano oo dhaawac uu soo gaaro waagaas maanta ay ugu dambeyn maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu warfidiyaanada u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedeysana oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah
kow cadeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane labo sawirrada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee caddaynta dhimashada marxuumiinta kale ah cabdulaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulle maxamed saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane marka ay dhegaysatay maxkamaddu dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cumar aadan maxamed labo cabdulle axmed muudey ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah cabdulaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulle maxamed ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabilaahi towfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho